haddii mar walba xisbiyada siyaasiyiinta ay danahooda eegayaan oo dabeetana ay ku saleeyaan kelmadda isla ogol oo ay yiraahdaan markaa dooni mayno in doorasho la qabto dalku miyuu waxaa dhimnaanayaa raalli ahaanshahooda maadaama doorashada tahay wax sharciya. 2005 dib u noqono maxkamaddii sare dastuurku waxay soo saartay qaraar dastuuriya oo aan laga tallaabsan karin inay tiri waa in doorashooyinka dambe soo socda lagu galaa tiro koob 2020 waynu jabinay qaraarkii maxkamadda mar labaad bay maxkamaddii dastuur ku noqotay inay si doorasho ay u dhacdo dibna loo eego maxaan ku dhahdaay arrintii ay soo saartay waa lagu galay sidii maanta mar saddexaad maxkamaddii dastuurka ma ku noqon karnaa oo ma oran karnaa qaraarkii labada jeer aad review garaysay maanta mar saddexaad loo review garay waan tahli kari weynay in dadkayga tiro koobno oo 12 kursi u qaybsano si cadaalad ah ay dadka reer Soomaaliland ka qabaan consent. Saashiid waxa weeye saanun heer burcaabaan ahayo inta badan waxaan dood ka qabnaa xilliga diiwaangelinta lagu beego hadaan heer guuraa u badanahay dadkayga aan diiwaangelinay yihiin dadka miyiga jooga anu waxaanu qabnaaba sababta diiwaangelinaha dub loogu dhigo inay gobolada galbeedku inta badan ku habeeyaan waqtiga iyaga ugu haboon waayo waxaanu lagu beegaaba xilli ah kala guur oo heermigu yara baqan yihiin saddexdii diiwaangelinadu dambeeyay xorreen marka xisbiyada iyo nidaamka xisbiyaduba anaga noo asaasiye dooda bal waxba ka jiro ninka commissioner-kana soo ahaa 15 sano gaar weydiinayaan casbitaal war xisbiyadu ma anagiina yara eegaano yiraahdaan qoladaas yaana aad u codayn baasha ay dib u riixin oo waxaan xeeladu baa anaga nagu socotaa way waxaan filayaa su'aalaha ugu muhiimsanaa baa harsan magacaygu waa Cabdinaasir su'aasheedu waxa weeye haddii Cabdi Fataax wuxuu yiri doorashadu waa isla ogol haddii mar walba xisbiyada siyaasiyiinta ay danahooda eegayaan oo dabeetana ay ku saleeyaan kelmadda isla ogol oo ay yiraahdaan markaa dooni mayno in doorasho la qabto dalku miyuu waxaa dhimnaanayaa raalli ahaanshahooda maadaama doorashada tahay wax sharciya. haddii madaxweynuhu maanta aad adigu ahaan lahaa tusaalahan aadna aragtid in asxaabta mucaaradka ama qayb ka mid ah xisbiyadu aanay doorashada u doonin dana u gaar ah ma isla ogol unbaa lagu salaynaya door noocaa baa xukuumadda uga furan madaxweynaha uga furan inuu doorasho qabto wuxuu dooranayaa raalli ahaanshaha asxaabta qaranka mise waajibaadka qaran ee ah in doorasho lagu qabto macnaha isla ogolka haddii la isla ogolaamayo madaxweynuhu hadduu ku adkaysto inuu doorasho qabto ma haystaa asbaabihii sharciga ahaa. way su-aasha waxaan weydiinayaa commissioner Cabdi Fataax mudane dhowr jeer waxaad ku soo celisay qaladaad ku jiray farsamo ku jiray diiwaangelinteena qaladaadkaasi miyaad is leedahay waa kuwa saameyn ku yeelan doona natiijada doorashada haddii ay jiraan qaladaadkaasi taasi waa su-aasha labaad waxa weeye waanaad sheer garan kartaan jawaabteeda su-aasha labaad haddii la doorto optionka ah in diiwaangelintii gebigeedaba aynu laalno oo dib u soo bilowno horena waad uga dhawaajisayoo muxuu ahay xuduudeennii juqraafiyeed imika way isbedeshay arrintaasi saameyn nooceeya ku yeelanaysaa state buildingkeennii taana su-aashana waa sheergarayn doontaan su-aasha kale waxay ku saabsan tahay compositionka NEC xubnahan guddida doorashooyinka qaranku waa 7 xubnood 7 xubnood miyaad is leedihiin tiradoodu way ku filan tahay hawsha baaxadda leh guddida doorashadu qabato dhinac kale haddaynu ka eegnana miyaa is leedihiin qaabka loo soo xulo guddida doorashooyinka qaranka imika ka yimaada xisbiyada iyo madaxweynaha iyo golaha guurtidu waa habkii ugu fiicnaaya aynu soo xuli lahayn guddida doorashooyinka aad baa mahadsan waxaan xasuusinayaa Soomaaliland waxa ka dhacay 12 doorasho hal doorashana waqtigeeda kuma dhaceen guddoomiyihii hore maxkamadda sare oo imika u sharaxay madaxweyne Kenya oo la yiraahdo David Maraga wuxuu xukunkiisii doorashadii lagu caliyay Kenya 2017 ku soo saaray halku dhig caan noqday oo ilaa maanta loo isticmaalo problemska doorashooyinka East Africa oo uu ku tilmaamay doorashooyinku inay yihiin hannaan ama process aanay ahayn result haddii processkaas hal arrin ay qalloocatana resultka aan la gaaraynin hal faallo iyo hal su'aal baan israacsanayaa Cabdi Fataax markuu commissioner-ka 2021 Soomaaliland waxa doorashooyinkii baarlamaanka laga qabtay 23 degmo doorasho
doorashadii dambe 2024kiina waxaa laga qabtay 17 degmo doorasho it means 6 degmo doorasho baxay sidoo kale goobaha codbixinta doorashooyinka waxay ahaayeen 2677 goobood oo dadka reer Soomaaliland ay ka codeyn jireen 2024 waxaa laga codeeyay 2477 goobood macnaheedu waxay tahay 200 oo goob codbixineed baa baxayo maanta Soomaaliland dhulkeega laga codeyn karaynin ha ugu badnaadaan Sool bari iyo Sanaag bari doorashada golaha wakiilada iyo golaha shaqeynku way ka duwan tahay madaxweynaha oo inclusivity baa la rabaa iyo dadkii deegaanadaasi inay golayaasha joogaan miiniska doonana ku joogaan maanta doorasho ma idin la tahay in Soomaaliland ka dhici karayso aan dadka reer Soomaaliland wada gali karaynin maadaama aynu ka hadlayno representatives hore u dhacday 2005 model bay ku yimaadeen dadka deegaanadaasi modelkii maanta xisbiyadu ma hadal hayaan waa su'aal ugu dambaysan Cabdirashiid wadiinay waxa weeye hawsha saami qaybsiga oo markasta doorashooyinku soo dhawaadaan Soomaaliland ka dhacday 2005 dib u noqono maxkamaddii sare dastuurku waxay soo saartay qaraar dastuuriya oo aan laga talaabsan karin inay tiri waa in doorashooyinka dambe soo socda lagu galaa tiro koob 2020kii waynu jabinay qaraarkii maxkamadda mar labaad bay maxkamaddii dastuur ku noqotay inay si doorasho ay u dhacdo dibna loo eego maxaan ku dhahdaay arrintii ay soo saartay waa lagu galay sidii maanta mar saddexaad maxkamaddii dastuurka ma ku noqon karnaa oo ma oran karnaa qaraarkii labada jeer ee review garaysay maanta mar saddexaad loo review garay waan tahli kari weynayna dadkayga tiro koobno oo 12 kursi u qaybsano si cadaalad ah ay dadka reer Soomaaliland ka qabaan consent cabdifataax bin quraale su'aasha doorashada isla ogol ayuu ku hirgashaa haddii aanay taa jirin maxaa laga sameynaya halka laba arrimood baa jiro mid waxa wixii sharcigu dhigayo doorashadu muddada ha qabato sida ha qabato dawladda waajibaadkooda caynka ha qabato midna waxa weeyaan qaybta oranaysa farsamo ahaan doorashada aynu galayna noocee bay u eegtay haddii dunta diiwaangelinta ba halalaale sidii dhacday 2012 marka waxa la isla ogoliyay waxa ay weeyaan kow institutionkii dalka u qaabilsanaa doorashooyinka option keenay Soomaa option 1 iyo 2 iyo 3 buu keenay by the time uu keenay option 1 iyo 2 iyo 3 halka dood baa ka ayaa ka furantay muu oran institutionku waxaan ku qabanaa doorashada kaas oo kaliya marka aad adigu option iyo scenario sab oo ay timi duruufta doonta ha keento duruufta keeni kartaa waxay tahay isla su'aal ah su'aasha labaad ah khaladaad baa diiwaangelinta laga ayaad carabka ku dhufatay maxaa ka jira eradkii ah waxa ka dhici kara optionskan ay commission ku sameynayaan waana idin sheego audit bay sameeyeen systemkooda dood diiwaangelinta hay-ad baa loo yeedhay deetana waxay baadhay diiwaangelinta aynu haysanaa tiradeeda final voter list iyo recordska aynu haysano ama inta ku jirta xogta ku jirta iyo inta dadka u jira systemskeeda systemku inta uu horumaraya oo maalinba maalinta ka dambaysa way soo soconaya warqadaynu ku galnay waynu ka tagnay fingerprint baynu galnay waynu ka tagnay iris scan baynu marnay waxaynu hibataynaynay inaynu qayb damba galno ah qofka markuu goobta yimaado ishiisa ay noqoto kaarkiisa si looga maarmo cilado badan ayaynu rajaynaynay daas waxa kasta diiwaangelinta laftigeedu inaanay ahayn wax meel taagan oo ay tahay wax soconaysa marka mar kasta oo aynu sii socono diiwaangelinta way jiraysaa qayb waaqic ina farayo inaynu la korno حتى مركز تعال لقيت قلت لك لفتي جود أيام برتبعش سيدا الله حضر وحن حسوستا هيجرى على هذا نبروهنا مركي فيكر بريد كلا سميها بلوي سوح اللي يسنشري مركي سوح اللي يستاد تنا وحكو أتكاتي إن لقبتر كرايو فيكر بريد كما فيكر بريد إن لقبته أيام أتكاتي وتكنيك وإن حيدا سمي سنة حيدا فرت سوود جليتشني سخت كلا لا سميه وإن لقي مركي دمبه أنا سمينا قف كستا كقاركاويد يكسوق به سفرتو دبل لو قبواه ومرحلة كانتي أنه لو نيها الجيل يقولنا وقف إشي سمنا كوبي كرو حنا ما مريك كره إشي صار نقطه بود إشيس مركز سيستم كو خلادات أوران بين لكن مركز توحيو بهاي إنه الله صعد الظروف توقت جاتنا أما السيستم كاسر لقى بحي هالنقطة والسيستم كريم وكسي أدقي هالنقطة أما وحي الله برانا يوم مركز الله برتعي الذي سروا الله برانا يا إنه تذكر وكهر رأيه هالنقطة أما بحال نقطة حكتا تذكر أقوياء أي ليهن والظروف عينك يا عينك سبب ديوانجلتي نكو أيا كل شيء أوباهن إلا هرمارين سوما نبي كرتو تاس إذا لفتي جدنا وحويان وقد يدوي مركا إسرائيل كي هدرت دي بروس النقطة
haddii qadiyad sharcitay uma baahna isla ogol laakiin weligeen doorasho kasta oo aynu galnay saddexda xisbi code of conduct baynu ka saxiixnaa waa inay isla garta markii garoonka kubadda la ciyaarayo waa inuu tiimanku garanayaan qawaaniinta lagu hagayo marka waa inay jirtaa qaab ay isla garanayaan doorashadoodu noocay tahay iyo waxay isla tahay laakiin waa waajibaad dastuuriya inay doorashadoodu qabsato isla su-aashaasi waxay aan daro kusoo xidhaya su-aasha inankaasi odhanaysa war doorashooyinkeenoo dhami dib bay ayay u dhacayaan maxaa lagaga baaqsanaya haddaad u fiirsataan dalalka caalamka intooda ugu faraha badan leh maalin baabay ku xidhaan doorashada waxay dhahdaan waa maalinta jimcaha ugu dambaysa bisha February qofku kama dambay karo haddii uu ka dambeeyo waxbaa ka dhanaya dowladda awoodeediiba ayaa wax ka dhalanaysa marka inaga xeerkeena fadfaad ayuu ku jira qaab aynu sidaynu doono aynu ka yeeli karayno marka waa qadiyado u baahan in xeerku uu xakamayn karayo maxaa lagu hagaajin karayaa farsamo ahaan siduu sheegay cabdirashiid in komishanka qadiyadiisa la eego oo iyadana aan ku xidhay saddex su'aalood baa soo raacinayaa qadiyada tirada komishanku ma ku haboontay in ay noqoto 7 iyo in ay noqoto qaabka loo soo xiro tirada waxaan isla dhibaato kuma jirto markastoo Soomaaliya tiradooda sii badato murankeedu wuu sii bataa waxaad jeed u yimaadaana runtii way koobantay marka qaab nidaamkeena doorashadeena la eego Uganda oo tagnay waxaynu u noqonaynaa mucjisaynu u noqonaynaa sababta goobtu ka dhacaa goobta marka soo dhaafo degmadu ka dhacaa degmada marka la soo dhaafo gobolku ka dhacaa gobolka marka la soo dhaafo komishanku isu geeyaa marka toddobadan inuu doorkii ku leeyahay waa nidaaminta iyo qorsheynta laakiin doorashada laftigeeda codaynteedana saameyn kale xataa sharciga looma ogolayna codayaan iyo kuma laakiin qorshaha hore ayuu iyagu ku leeyahay marka tira ahaan waxaan isleeyahay dhibaato kuma jirto laakiin laba qodob ayay dhibaato ku taag iyo ku jirtaa mid waxa markay dadka u soo xolayo war qodobada inoogu yaalla sharciga ee qofku inuu ka madax bannaan yahay xisbiyada qaranka taada sharciga ma hafliyo qofku marka hore laba in qofka lagu yaqaan inuu qof dhexdhexaad yahay dee marka hore horta hal aynu furin oo baarlamaanku haddii wax ka qaldan yihiin dee baarlamaanku soo celinaya qodobada caynkaas dee qofkaasi muu bixin awoodii iyo kartidii waxaan ku qaban lahaa qofku ma leeyahay dee aynu eegno haddii uu qofkaasi aanu lahayn dee aynu iska reebno qadiyada ku saabsan meelaha ka imanayaan mar kasta oo xisbi mucaaradi uu dibadda joogo uu neceb yahay wuxuu qoranayaa annagu xubin kaliya ayaanu ku leenahay cadaaladi kuma jirto xukuumaddu 3 bay leedahay labana guurtiday ka yimaadaan mar alla iyo maalinta qofkaasi kursiga fadhiyo kiiba maaha waxa la macaanaanaya uun powerka marka qadiyada sida ay isu balance gareeyaan horta runtii marka loo fiiriyo bal sharciga yar eega qofka komishineerka xataa inuu ka mid noqdo xisbiga inuu ka mid noqdo waxaana qofkaasi wuxuu ka yimid xisbiga wadani xisbiga ucid xisbiga kulmiye marka horeba sharcigu wuxuu leeyahay in qofkani uu xisbi noqdo waxay odhanaysaa waa in qofku uu ka madax bannaan laakiin soo jeedin buu leeyahay qof dhexdhexaada waa inuu xisbigaasi ka doonaa meesha oo uu dee tala keena marka horeba saas dhigaysaa marka waxaan isleeyahay qaybta lagu soo xulayo halkaa waxaan isleeyahay ruun baa jira ama qaab lagu hagaajin karayo muddada waxaan isleeyahay qaab baa jira inta kalena sharciga inoogu qontay sharciga wanaajintiisay ku jirta qadiyada ku saabsan kaga baxayaana ee ku saabsan degmooyinka doorashada 2021kii 3 degmo doorasho lagu qabtay kumina qabane waxaan ku qabanay 21 degmo doorasho degmada la yiraahdo Las Qoray maynaan gaarin buuhoodle magaca way jirtaa laakiin qayb ka mid ah baynu gaarnaa dhahar iyo baran qayb ka mid ah ayaynu gaarnaa marna fuul baynu u gaarnaa laakiin xeerkeenu doorashooyinkeenu incremental bay ahayd ama wax kordhaya bay ahayd marka hadday 17 degmo ay inooga qabsoomi karayso 17 degmo uun baad ka qabanaysa amniga inaga inoo muhiima goobaha qaarkood intay ciidamadu tagaan doonayaan amnigoodu way adag in looma baahna in laga qabto marka qaabkii kale looga wareegaya waa sababtaynu berigii u keenay qadiyada isxambaarka ama aynu dhahno ama listada aynu dhahno oo intuu gobolku ka helo ayuunbaa loo sameynay marka haddiiba kadib gurasho ay keentay horusocodna way keenaysaa degmooyinkeenu waa runtii way sii korayaan wixii kalena shuruucdii hore ee aynu ku sameynaynay ayaynu samaynaynaa
inta kale waxaan uga tegi doonaa bulshada dilan waayo cabdirashiid su-aalaha wixii ku khuseeyey iyo wixii kale aad ka jawaabi kartaba su-aalaha inta badan waxaa ku jawaabay cabdifataax wax badan ku dari maayo inankii halkaa joogay magaciisa iga baxay waxaan u malaynayaa inuu yidhi xisbiyadu hadday ku heshii waayaan maa loo xanibnaanayaa waa su-aal muhiima weeye haddii ishyugu aanu ahayn horta sharciyadeena marar badan waxaa la yidhahdaa waxa ku badan grey areaska xeer baa qeexi iyo iyadoo aanay qodobku si fiican u caddayn laakiin waxa la isku haystaa haddaanu ahayn wax muuqda oo xisbiga si gaara u saameynaya ee uu yahay ishyugu wax saddex xisbiba wada saameynaya in loo joojiyo ma qabaano waayo wax xisbi gaara dhibku maaha hadduu leeyahay anoo xisbi hebel baan ahay oo diiwaangelinta noocaad u qabanaysaa dhibaato caynkaas igu leedahay I don't think inay jirayso xisbi gaara oo ama meel location gaara waayo qaabka loo qabanaya waa qaab uniform oo isku mid ah oo u dhexeeya deegaanada cid kastaba ha kasoo qayb gasha diiwaangelinteeda marka in loo joojiyo ma qabo taas baradee taas tahay madaxweynuhuna dee iyo xukuumadduna waa mas-uuliyadda koowaad iyagaa leh inay mar walba riixaanna way tahay waxoogaa waxay nagu yari jiraa guud ahaan xukuumaddeena maaha tan maanta joogta une iyo xukuumadii ka horreeyaba habrasho sharciga fulintiisa ayaa mushkilad inagu ah waxaa laga yaabaa qaraaro maxkamaddu go-aamisay ilaa iyo intaasoo sannadood inay fulin sugayaan oo aan la fulin sharciyadan doorashooyinka laftirkooda iyaad moodaa in laga heshiiyadaasi ay ku tahay mushkilad waxyaabahan loo baahnayn ba in laga heshiiyo oo ay tahay in go-aan laga qaato marka inaynu sharciyadeena fulinteeda ku dhiiranaana waa muhiim ama commission ha noqoto ama xukuumadda ha noqoto ama golayaasha ha noqoto dadkeenuna inay gartaan inay isticmaalaan garsoorka ee aynaanu garsoor ka baxsan garsoorka sharciga ee inoogu jira dastuurka oo ay noqoto mar kastoo maro yimaado in dibadda lagu xalinayaa iyo guddiba odayaalaha ka talinaya la yidhaah dowladnimadeenu meel gaari mayso korina mayno taasna inay naga dhamaato ayaa muhiima oo ay dadku gartaan inay garsoorkana aaminaan isuna dacweeyaan xukuumaduna inay garsoorka ka badheedhaan inay ahaadaan garsoor madax bannaan waxaan filayaa mawduuca in badan baynu runtii ka hadalnay su-aalo kooban baynu bixin doonaa 4 su-aalood baynu kusoo gabagabaynaynaa بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو مصطفى دمبيل waxaan jecelahay inaan saddexdan qodob ee halkan noogu qoran oo aad moodaysa mid ka mid ah inta badan inay kusoo noqnoqdeen khubarada halkan la hor jooga ayaa waxaan doonayaa bal inaan iyaga laftooda su-aal ka sameeyo kadib markaan isku soo xidho doorashooyinku waxa loo yaqaano waxay keenaan laba shay midkood sharciga inay burburiyaan ama sharciga inay dhisaan awoodda lagu fulinayo haddii ay dadku oo publicii ay kalsooni ku qabi waayaanna waxa lunta cidda awoodda haysa ayaa waxa kalsoonidii ummaddu ay ku qabtay ayaa runtii meesha ka baxda waxaa jira iminka qodobka u dambeeyay ka hadlayna iminka taagan ee doorashooyinka iyo guddiga saddexda option soo dhigay sida war oo soo baxay commissionka laftoodu waxay ka dayriyeen nidaamka doorashooyinka iyo dhaasada inoo diiwaan gashan wax lagu codeynayo iyagoo taasi jirto haddana waxay soo dhigeen 3 option oo midna yahay in doorasho zero laga soo bilaabo midna tii hore wax lagu daro midna meelo kooban laga qabto waxaan aaminsanahay anigu marba haddii walaac ku jiro systemkii doorashooyinka aynu ku gelayn inta la doortaha iyo doortuhuba haddii option 1 iyo option 2 oo labada xisbi ee waxa weeyaan wadani iyo kulmiye ay midba mar ku boodeen kulmiye mar isaga tusaale ahaan ka ma su-aasha ma doonayna waxaan doonayay macnaha waa socdaa raaliga kulmiye isaga mar ka la joogay number 3 haddana wuxuu tagay 2 wadan isaga ka soo guuray number 1 wuxuu ugu yimid wadani kulmiye ugu yimid number 2 haddana wankiisii uu ku noqday laakiin wada xisbigaas halkiisii uu taagan yahay waa dood xisbiyo waa wax iska macquul ah su-aashan doonayna waxaan doonayaa cashkuur marka intii la doortaha iyo doortuhu ay kalsooni darro hadhow ku qabi lahayn taasina muran dhaawac weyn ku keena sharcigeena doorashooyinka ee nidaamka keeni lahayd
miyaanay ka wanaagsanayn waqtigaan haystana in laga faa'iidaysto doorasho diiwaangelin cusubna la qabto si dadku markaa waxa weeyaan waxa ka soo baxa daneeyayaasha iyo dadka codeynayaaba ay kalsooni buuxda ugu qabaan sharcigii doorashooyinka iyo nidaamkeena aanu khalkhal u gelin miyayna taasi ka wanaagsanayn in la iska eriyado oo say sheegayeen ama fool eri ama dhoob eri midkay doonaan baa isticmaalaan akhbarada oo midda waxa weeyaan dadsi adeegsaday may taasi ka ficnayn waay laba saacadood baan doonaya inaan weydiiyo maxaa inoo diidayaa maadaama diiwaangelinta iyo budgetku yihiin waxyaabaha ugu badan ee doorashooyinkeena dib u dhiga in miisaaniyadda qaranka lagu daro inay budgetka mar walba ay ku jirto doorashooyinka iyo inay diiwaangelintu noqoto mid sanadka oo dhan furan maadaama waqtiga diiwaangelinta la qabanaya dadkeena reer miyiga guuraaga qaarkood fog yihiin dadka qurbo joogga aanay fursadda xilligaa ay doorashada dhama diiwaangelintu dhacaysa aanay joogin ama dadka degan laftooda waqtigaa doorashada la diiwaangelinayo aanay waddankaba qaarkood ee joogin oo fursaddii ay isku diiwaangelin lahaayeen aanay helin maxaa diideynayno sanadka oo dhan diiwaangelintu inoo socoto gobollada ka socoto iyadoo weliba laga soo saari karayo budget dadka laga qaadi karayo maadaamay iyagu marka hore habsaameen arrinta u dambeysa waxa weeye haddii madaxweynaha iyo asxaabtu ay ku heshiiyaan waxa la dhahaa gentleman agreement oo baalmarsan wixii qornaayo shuruucda waddanka u yaalay roolka dadka doorashada daneynaya waxaa ka mid a dadweynaha laftooda oo doorashada saameyn ku yeelato dhaqaale iyo amniba maxaa iyaga u bannaan inay u dacwoodaan ama waxay tegayaan sharci dejintii bay tegayaan ama waxay tegayaan hay-adihii maxkamadaha oo kale admasantii waxaan doonayaa laba su-aalood oo kooban inaan weydiiyo su-aasha koobaad waxaan weydiin lahaa cabdifitaax madax banaanida komishanka doorashooyinka maadaama aad sheegtay sababaha doorashooyinka ay u dhacaan mararka qaarkood in danaha ama xisbiyada amaba madaxweynaha ay ka timaado guddiga doorashooyinku ma qaban karaan doorasho iyagu ay u madax bannaan yihiin si danaha looga hortago gaarka ah talabaad waxaan doonayaa in cabdirashiid weydiiyo doorashooyinkeenu aad bay dib ugu dhaceen tusaale ahaan 2005 ilaa 2025 waxa laga yaabaa sharciyan marka la eego in 5 golaha wakiilada isbedeli laayeen marka doorashooyinka waqtigooda ku dhaca habka qofka muwaadinka Soomaaliland uu codeeyo maxay ka bedeli lahayd tusaale ahaan inagu waxaan codeynaa laga yaabo qaab qabiila marka doorashooyinka inay soo noqdaan maxay ka bedeli karaan qofka muwaadinka qaabku uu codeeyo inay isbedesho يعني waxa weeyaan hadii doorashooyinka la joogteeyo fakarka qofka muwaadinka magacaygu waa maxamed daahir dhowr su'aalood oo kooban baan rabaa inaan weydiiyo marka koobaad si guud baan idiin weydiinayaa laga soo bilaabo Somaliland xilligii lagu dhawaaqay ilaa maanta madaxweynayaal kala duwan baa soo maray inta madaxweyne soo marayba mid kasta muddo korar baa u samaysmay halkee looga gudbi karaa sideena looga bixi karaa iyadoo aan wax dhibaato dabiici aanay imanin oo gacan ku sameysay tahay inta badan talabaad kale in raba inaan weydiiyo komishanka si gaar ah weydiiyo waxa weeyaan caqabada diiwaangelinta inaga haysata waxaynu maray diiwaangelino badan khibrad miyaynu ka weynayno ka dhaxalo in laga gudbo markasta caqabadan ah diiwaangelintii hore laguma geli karo teeda kale aan rabaa inaan weydiiyo oo Cabdirashiid si gaar ah weydiinaya mudane ma la oran karaa hadalkaaga ahaa waxaan saari karaynaa doorashooyinka waxay gogol xaad u tahay in mudanayaasha hadda jooga ay u noqoto muddo kordhin aad baad mahadsantihiin inta badan doorashooyinkeenu dubbay u dhacaan imika tusaale ahaan 2016 kaarban ku galnay doorashada dadka xogdooda la hayo ee waqtiga la diiwaangeliyay marka imika loo eego intee ilaag baa meesha ka bixi karta oo dhiman karta intee qaangaadhay si taasi la isku waafajiyo komishanku ma hayaan xog rasmi ah oo dadka meesha ka baxay dadkii inoo diiwaan gashanaa magacaygu waa Liibaan Maxamed Ismaaciil waxaan salaamayaa Cabdifitaax iyo Cabdishakuur iyo Cabdirashiidba su'aashaydu si guud bay idin khusaysaa taariikhda dib u dhaca waxay bilaabmay Cabdirashiid sheegayay 95kii ilaa maanta oo ay taariikhdu 2025kii weli dib u dhac waxay muddo in daba socdo ummad ahaan iyo dawlad ahaan weli maynaan garowsan faa'iidooyinka leedahay doorashada waqtigeeda lagu qabtaa sidee bulshada lagu cadeyn karaa doorashooyinka hadii waqtigeeda lagu qabto faa'iidooyinka ka soo bixi lahaa su'aasheedu waa sidaas su-aasheedu waxa weeye
saanu nin heer burcaa baan ahayo inta badan waxaanu dood ka qabnaa xilliga diiwaangelinta noogu beega haddaanu heer guuraa u badan nahay dadkayga aanu diiwaangelinaa ay yihiin dadka miyiga jooga anigu waxaanu qabnaaba sababta diiwaangelinaha dub loogu dhigo inay gobollada galbeedku inta badan ku habeeyaan waqtiga iyaga ugu habboon waayo waxaanu lagu beegaaba xilli ah kala guur oo heer miyigu yara maqan yihiin saddexdii diiwaangelinadooda u dambeeyay waxaan rareen marka xisbiyada iyo nidaamkan xisbiyaduba anagaaba noo asaasiyay dooda bal waxbaa ka jiro ninka commissionerkana soo ahaa 15 sano gaar u weydiinaya casbitaal war xisbiyadu ma anagiina yara eegaano yiraahdaan qoladaas yaana aad u codayn baasha ay dib u riixin oo waxaan xeeladu baa anaga nagu socotaa waaga assalaamu calaykum arrimaha cimilada iyo seasoniska miyay ku salaysan tahay hawsha magacaygu cabdixamiid maxamed su-aal degdeg umaan doonay inaan weydiiyo cabdirashiid xasan mataani iyo cabdifataax ibraahim markii in one way or the other qof hore weydiiyey laakiin kama jawaabin marka la eego 7 xubnood ee komishanka doorashooyinka maxay ahayd caqliyadda ka dambeysay in madaxweynaha 2 xubnood la siiyo waayo madaxweynuhu markastaba dee dhinac buu ahaanaya maaha macna madaxweyne non-partisan ma jiro marka caqliyadda ka dambeysay in madaxweynaha la dhahdo 2 xubnood kusoo magacaabaya maxaa lagu saleeyay meelaha ka imanayaan xubnaha guddiga doorashooyinka labada madaxweynaha ayuu gaar ku weydiiyey anna waxaan sii raacinayaa xitaa labada la siiyey mucaaradka iyo guurtida sidan ayaa u qaybiyey sidee bay hawsha u dhacday bal aan isku dayo inaan ku horeeyo anu su-aalaha qaar mustafa waxaan u malaynayaa dhambiil waxaad walaac bay ka muujiyeen xisbada qaar ama agaad commission ka muujiyey diiwaangelinta miyuu hadalkaa ku jirin soo noqotay haddii taasi jirto oo commissionka laga hayo inuu walaacba ka qabo diiwaangelinta waxaan u maleynayaa arrintu way fog tahay inay khasab noqonaysana markaa haddii in dib loogu noqdo diiwaangelinta ay noqonaysaa haddii commissionkaba laga hayataa oo anu dee ma hubo waa war iminka adigaan kaa maqlayo waxaa iyadna ku jirtay su-aal uu ina weydiiyey inanka halkaa fadhiyo oo ahaa dad baa musharaxiina doonaya in la doortay iyagu dacwo tageen in doorashada dib u dhacdo waa runtii waa xuquuq muwaadin ku leeyahay inuu wax doorto oo la doorto doorashooyinkuna inay waqtigooda ku dhacaan waa inay ahaataa wax geedka go-an ah laakiin wixeenii iska daba furan buu noqday ama sharciyadeena aan ixtiraamayn ha noqoto ama xilli gudasho la-aanta ha noqoto ama inagoo ka jecel sharcigan isticmaalo inaynu ku marno dibadda lagu xaliyo marka dambena ergo iyo wax lamid ah marka waxa qure lagu xallin karaa waxa weeye in musharaxiinta iyo taageerayaashooduba ay xoojiyaan inay riixaan arrinta si ay uga midho dhaliyaan anuu qodobka intaa ku adkeyn kara ma jiro waxa iyadna su-aal kale ahayd baan u malaynayaa sidee loo soo xulay sida qaabka loo soo xulay muxuu ku salaysnaa guud ahaan horta dastuurkan haysano waxaa la sameeyey xilligii allah u naxariistay madaxweyne cigaal uu talada dalka hayay berigaa la sameeyey dastuurka muran baa ka dhacay baarlamaanka qudhiisu qaar bay sameeyeen madaxweynuhuna guddi uu magacaabay gaara baa jiro nin suudaaniya iyo guddi kale oo xubno somaliland oo culimo ku jirtayna ay jireen oo iyaguna sameynayay marka khilaafaad badan oo ku jira wuu jiraa samayntii dastuurka marka suuqa la joogana siyaasiyiintu waxay yidhahdaan madaxweyne cigaal beriga wuxuu sameeyey dastuur uu awoodda oo dhanna madaxweynaha hoos keenayo sharciyadana inta badan xeer baa qeexi doona la yidhaha oo aan furfurnayn waxyaabaha dastuurka samayntiisa dedejiyena waxaa iyadna qayb ka ahaa axdi qarameedkii boorama lagu sameeyey oo uu madaxweynuhu beriga u akhriyay inuu ku noqday dabar waayo baarlamaan adag baa jiray xilligaa iliidkii soomaaliyeed ee soo burburay intii waqooyi somaliland ahayd baa joogtay rag axdi qarameedka sidiisa u akhrisanayay oo aan tallaabo la qaadin baa jooga oo rag culus ahaa marka axdi qarameedka dabar buu ku noqday waxyaabaha dastuurka in la dedejiyo keentayna taasaa ka mid ahayd haddaba dastuurkaasay ku jirtay qaabka loo xulayo maxaan dhahdaay commissionka doorashooyinka mana aha wax qur-aan ah dastuurkeenna ilaa maanta waad ogtihiin oo marmo badan baa ka jira furitaankiisa siiba bari iyo galbeed oo marar badan ay lahaa waa in la furaa dastuurka waa in la furaa
not only bariya galbeed laakiin waxaa ku jira waxyaabo badan oo u baahan inaynu rifaan garayno waayo sharciyadu waa wax isla bedelaan nolosha iyo waqtiga in mar walbana lagu toosiyo ay tahay isku soo wada duubo cidda meesha la geeyaa siday doonto lagu soo xilay haddii kitaab la marinayo oo dhaaranayaan iyaguna ay tahay in sidoo shaqayn la aamino waan qabaa inay shaqadooda fulin karaan oo si hufan oo cadaalad oo sida loo dheeray u fulin karaanna waan qabaa laakiin dee kalsooni darro mar hadday mar walba jirto waa in xal kale looga guuraa waayo xisbiyadu mar kasta ay bannaanka joogaan mucaarad yihiin way ka doodaan toddobadaas laakiin markay kuraasada tagaan dastuurkii iyo guurtidii iyo wixii way la qurux badnaadaan oo maaragtay dhibaato kuma noqoto marka taasi waxaan u baahanahay inaynu ka guurno oo inuu guurno wixii danta ku jirto oo ah inaynu sharcigeennana fulino wixii isbeddel u baahanna dastuurka laga bedelayana aynu samaynay labadaba waayo cabdirashiid mid kaloo uu ku weydiiyey baa jira mid kamid ah dadkii su-aalaha ku weydiiyey qofka codbixiyaha ahi doorashooyinka marka soo noqnoqdaana muxuu baranaya waa runta su-aashaasi wallaahi waxa ku jira caafimaad badan doorashooyinku waa runtii 4 baarlamaan baa isbedeli lahaa intii ay baarlamaan qori fadhiyeen ilaa ka maanta haddii 4 doorasho dhici lahaayeen mar kasta oo aynu doorasho qabsanno doorasho waxaynu qabsanaynaa inaynu u guurno talada maanta tala ka fiican wayna jirtaa oo mar kasta doorasho inoo qabsanto waxa la doortaa dad ka duwan dadkii hore fikirro ka duwan baa yimaada waxaynu u guurnaa inaynu ka horumarno qaabkaynu waxu dooranaynay iminka maanta waxaad arkaysay waxaan arkay barnaamijkan daawanaya galabta dooro xildhibaanadaada oo barnaamij gabdhaha loo sameeyey ah ma jiri jirin maanta hami fara badan baa jira oo habaha soo galay musharaxiintii ugu badnaa ee isdhiiri gelinaya oo hablaha ku dhiiri gelinaya inay hablo isdoortaan oo ay maaragtay xagga gender bias ka noqdaan baa jira marka way bedelaysaa fikirka doorashada haddii doorashooyinku ay frequently noogu dhacaan madaxweynaha qudheeda waxaa dooran lahay madaxweynihii sideedaad ba laga yaabaa imika ama yaa dhici lahaa taa qudheedu waxaa loo guuri lahaa imika mar walba doorashooyinka iyo qaabka loo ololeeya waad aragteenoo imika waxqabad baa lagu ololeeyaa ma garanaysaa oo dadka waxsaan qabanaya kanaan qabanaya imika musharaxiintii golayaasha baarlamaanka laftarkooda ayaa kala yaacayo nin baa leyd baan gelinaya tuuladaydii iyo waxyaabo lamid ah marka way bedelaysaa fikirka doortaha iyo la doortaha labadaba haddii aynu hore ugu sii soconayno doorashooyinkeena badsano aynu waqtigeena ku qaban cabdifataax iyo su-aalaha khuseeya sessionkuna wuxuu ku dhow yahay gabagabadii kusoo dhow بسم الله الرحمن الرحيم ودير بدي سمر كاو كير هفنينا مصطفى دبيرو كل مجلس شيء إن وحكى هذا يدي قد يدن حسبية يدودن هذا تاجن سدح دن أوبشن يجلس جورجور كحسبية لنا عمرك لقى إيجو إن حسبه أنا ميل كل جناني وجورجوره إن عيب معه واسقنعين هذا حسبه أنت ميل ولي ما ده دود بمعه لكن إن لسقنعيها وقد يتكمل لكن دود ما حيكون لسنتي بقى أيام كذا يسوع حسبية ولا بعد موضوع بس كويس قرنا واحد ليه ده تايم كان مهم إيه بحش وقت جدي هاي نجا دعوة تيتان أوبشن كأوقف فضود إيه صورة قالك أنا قادم قرنا كان واحد ليه ده ورمي كواليتي كان مهم إيه بحش أسئلة أيه برح ترى ينان قبل وحنا في ليا تالب تجد واحد وضاد دحتاله إن لسكوك العيون وقت جي كواليتي كسيدي ليسوا فتشلها إن ديوان قرين تاسنا ديوان قرين لقوق نحسن يهيته دلك واحد أوقاتان حسبيدين إمك تورشيدي قدام بسمة دحوين هكذا ديوان قرين لا ما بيكون كله إنه وقت ما لبدي كل اللي بيتوكي ديوان قرين بمي بيشرين مركا دورشيل دوري ولا قلي كره وحتى بارلمان كابا أيابا لها واحد دي قد يتفكر كا تايم ومهم ونقطه لكن أنا واحد أمسنا هاي تايم كا يكواليتي لبده هو مهم سيدي لبدا الله يسوع فتشلها إن يدودو نقطه أو قفنا ماشان نرورو ودي بقول ريحو يانو كراتسن أو دورشوينكو أي دي بقول ريحان يعني نقولين تايم كو بلا كواليتي يانو يسوقنا نقول تايمون آن نقوله أي سجل فتيجي سنة على بركة الله بدا وإن ليس سبيل لكن مرة بينا واحد كود ذلك نقطة قرنية يوردورشو دي وقت قد هنوقف أبصنا يجوا وحلوقه بسنة نقطة قناع سنة وقطب كاسا إنه مهمة
qadiyadda kale ku saabsan budgetka iyo inay diiwaangelintu sanadkoo dhan furnaato labada qodob waan waafaqsanay anugu waxaan waafaqsanay war doorashada si aynu u yeelano xeerkuna saas u dhigaya in sanduuq la furo deetana halkaa lagu shubo waa meelaha aynaan dhaqan gelin doorashada waxaad leedahay marka lacagteeda aad leedahay marka imaka qadiyadda budgetkee ku saabsan optioniskani mabuu noqdeen doodba muu noqdeen arrinkan baynu ka hadlilayn si markaa xisbiyaduna ay xisbiya u noqdaan oo dadka uga horeeyaan war qadiyadda dhaqaalaha ku saabsan doorashooyinku sanduuq gaar ha yeesho baryayaynaan ku samaynin dee waxaynu haynoo diyaar noqdaan war qaabka labaad een leenahay war diiwaangelinta iyo arrimaha ku saabsan waa in lala noqdaa war kolba aynu isku noqono qaabka inoo suuragalay reer miyigeennu way ku dhibayin qaabkani makana ina ogtihiin mooye xildhibaanku sababtanu meesha uga kicilaayay dhaqaalaha ka gala iyo waxa ka soo gala mushaharkiisu 10% ma aha waxaa loo marna odayadii soo rar mar islaamihii buu soo raraya mar wacyigelintii buu soo raraya taandhooyin buu u samaynayaa raashin buu siinayaa dee hawshaasi kursiga waxay u noqonaysaa inay u eekoonaado inuu qofkan inuu iibsaday deetana hadhow markuu yimaado qaab kale u fikiraya war markaa si aynu labadaa u kala ilaalino maxaa inaynu kala ilaalinaa fiican marka waxaan boqol ku waafaqsanahay war miisaaniyaddana aynu yeelano qaabka diiwaangelinteennana dib aynu ugu noqono qaabkani waa qaab culus taasi hadal waa biyo kama dhibcaan qodobka labaad xaqiiqdaas ka fiican layska sheegay xildhibaanku muxuu u diidayaa meesha inuu uga tago sooma xildhibaanku wuxuu ugu diidayaa inuu uga tago arbahashii dee kaltan reereed bay noqotay xildhibaanku mar keliyuu leeyahay deetana wuxuu isleeyahay markaa wuu ku dhegayaa inaan bahashaa laga sii dayn war xisbiyadu doorkooda ha qaataan oo siyaasaddu maaha kaltan reereed ee siyaasaddu waa mabaadi iyo qof xisbiga ka midi inuu ku soo noqnoqon karay dee dowladaha bahashan aynu ka soo guurinay qaar baa 60 sannadood kursigaa fadhiya because xisbigu aaminsan yihiin constituency-giisana wixii uu doonayay buu qabanay laakiin maanta marka xuseen iyo xasan iyo cali la doorto oo uu og yahay intaa inuu leeyahay in allaale iyo nidaam kastuu meesha kusii joogu samaynaya bahashiina suuqa iyo madalo kale ayaa lagaga go-aan gaaraya marka halkaa waxaan isleeyahay doorka xisbiyada ay ka gaabiyeen baa keenay inay qayb ka noqdaan in ay kororsiga laftigooda laakiin hadduu xildhibaanku ogyahay xisbigu inuu isagu u hayo waliba midna ogaada imaka xisbiyada reeruu ma hayaan berigii hore reeruu haye ee la odhanayay xildhibaankiina keeno deetana xisbi baan ku noqonaya maaha waa tan baashta iminka la isdhaafiyey imaka xisbigu kumaba tiirsanaa ardaayada waxay karaan inay yahdaan kaanuunagu doono baanu iyadan keensan karna ayay karaan marka waxaa la arkays waa door ka maqan oo qaab dhaqankooda ayaa qayb ka ah xisbigu doonaha noqdo qaab dhaqankooda ayaa qayb ka awoodahoodii inta cid kale samaysay in markaa kadib iyadu laftigeedana ay asbaabta sababta ay ka mid tahay waxyaalaha had iyo jeer dib doorashadu ay qofku ugu sii fadhiya aanu kursiga u kacayn oo dhaqaalo badaxna kaga baxo qadiyadda ku saabsan dacwadda dadweynaha runtii waxaan filayaa malaa guuleed hadduu joogi lahaa qadiyadda sharci yaqaanka anu waxaan ugu qadiyad petition ay jirto 5 kun oo qof ay xildhibaanada iyo waxa ka dacwo karayaan laakiin kiiska waxaan leeyahay mala sharci yaqaanada ha loo geeyo laakiin waa qadiyad faalida asa public ahaan inay bilsilmay madax banaanida neg ma qaban karta haddii xataa ay murankoodu kuwan sameeyaan dee meesha dalkii baa ka maqan neg waxay shaqaysaa horta haddii ay dhaqaale ay hayso ayuunbay shaqaynaysaa haddaan dhaqaale meeshii aanay jirin in fact madax banaanidoodu systemkooda dhexda laakiin maaha mid badax tiran maaha qayb badan oo ka mida madax banaanida neg way maqantay marka xaqiiq laga hadlayo waxay ku maqantay shuruucda dalkay ku maqantay haddii miisaaniyadoodu halkaa u taallo oo aanay ciidan ku samaynin haddii qaabka lagu eriyaya uu ka dalalka qaarkood sida gaana iyo waxaan ka soo warno gudoomiyaha iyo qaarkood waa permanent noloshooda way adagtay in la eriya laakiin qaabka lagu soo xulaana aad iyo aad bay u adagtay marka waa isu suran waxa isu suran qofka sida lagu soo xulanayo iyo sida lagu erinayo in la adkeeyo marka madax banaanidooda halkaa qaybo badan oo commissionka ka mid ah ayaa ku keenaya xataa option kan ay keenaan canaanka yaabnima ku jirta marka xaqiiq laga hadlayo qadiyadda ku saabsan muddo kororka sidee baa looga bixi karaa qadiyadda hala sharciyeeyo hala yidhaahdo muddadaa markay gaadho haddii ay waxaa dhaafto waxaasaa ka dhalanaya waa in clear statement oo sharcigi waa inay ka taallaa markay taas ka taallo deetana waxay noqonaysaa kororsigu inay meesha ka baxo waxaa jira intaasoo statement baa jira
haddii la yidhaahdo markay 6 bilood hadday dhaafto waxa loo gelay 6 bilood oo kaliya 6 bilood hadday dhaafto ciddaas waa la dissolve garaynaya haddii la yidhaahdo awoodihii waa la kala diri karaa awoodahoodii baa la yareynaya jira qaybo badan oo waxaa jira lagaga baxo marka shuruucda la eego marka waana doodaha u baahan inaynu dhigno si madasha intaa uga ilaano caqabadaha diiwaangelinta sidee baa looga gudbaya horta habdhaqankeenna dee caalamka laba siyood baa jira diiwaangelinta loo galo marna way madax bannaan tahay marna waxay ku xidhan tahay waxaan civil registryga la yidhaahdo diiwaangelinta caamkaa bay ku xidhan tahay marka diiwaangelinta caamkii qof wal oo kasta oo u dhashay somaliland waa inuu diiwaan ku jiraa deetana dadka qaangaadhay waa in laga soo qaataa nidaamka sidoo kale qof kasta oo dhintay waa in la diiwaan geliyaa si uu nidaamka uu uga baxo waxaanay ka mid tahay cilladaha diiwaangelinteeda haysata oo qofkii dhintay dee warqad la keeno la odhanaya kaga saara ma jirto laakiin intii aan ogaa commissionku waxa uu yaallay qodob odhanaya qofku hadduu 3-4 jeer oo isku xiga uu codayn waayo macnaheeda waxaa loo aqoonsanayaa in qofkaasi uu aanu diiwaanka ku jirin taa laftigeeda xisbiyaday ka baqdaanoo lama hirgeliyo marka waxay u baahan tahay qaabka diiwaangelinteedu inayda laftigeedu ay dib u noqdo civil registryga iyo kan sidii la isugu xidhi lahaa la sameeyo iyadoo madax bannaanideedina la eegayo berigii hore waxaa la isku qabsaday war haddii civil registryga la sameeyo ma xukuumadda markaa joogtaa ay bahashaba iyadoo loo wareegto halkaan ta deegaankana intaas ah qadiyadaasina waxay u baahan tahay iyaduna sharcigeeda in maaragtay qadiyadda ku saabsan cabdirashiid baa lweydiin uga baxaya sisaarku ma sababi karaa kordhinta marka hore orun fikirkaa maan qabin markaa waan ka boodaya diiwaangelinta dadka ka baxay commissionka iyo commissionku ma haya waan idii sheegaya ku lahaa waxay marka hore ilaa 4 qof 3 jeer hadduu qofku diiwaangeli waayo in laga saaro laakiin badana cananka yaabnimo markii ugu dambeysay ayaa runtii ayaa jirta qadiyadda ah qolada burco haddaanu nahay annagu diiwaangelintu baa nagay nagu foorartaayo waa qolada galbeedkaa soo samaysnaa runtii dood dheer baa waxay ka dhacday somaliland cimiladeeda waqtigeebaa ugu habboon in doorasho la qabto 2 jeerun baa la dhahdaa way ugu habboontay midi waxa weeyaan waa bisha may waa gub waxaana lagu ordayaa xeebihii inay kulaylkii gasho ayaa lagu ordayaa marka waxaan filayaa xeebahana marka la eego gobollada intooda badani dhinac bay ayay ka saaran yihiin marka bisha may bisha kale waxay dhahaa waa bisha November marka had iyo jeer labadaasaa ayaa ugu badan in waqtiga lagu beego bal idinkuna cimilada ku noqon doontaano xilli kaga habboon doorashana ilaa 2 jeer ma dhici karto mar walba u baahan tahay xilligaas ay dhahdaan had iyo jeer waa ugu fiican madaxweynaha maxaa keenay inuu 2 soo xulo runtii 2 ma soo xulo 3 ba soo xulo madaxweynuhu labana guurtidaa soo xulana labadana waxa soo xula xisbiyada cabdirashiid baa ka jooga waa ribahayga da'da weyn anigu aan la kulmay un laakiin waa meelaha dooda badani ay ku jirto waxaan filayaa haddii aanan qaldanayn intii ugu faraha badnayd waan taabtay aad iyo aad waad mahadsantihin waay su-aasha ugu dambaysa waxa weeyaan maxaad xal u aragtaan si looga gudbo doodahan imika taaganna ay ugu sahlanaadaan oo go-aan loo gaadho looga badbaado dhibaatooyinka ay leedahay muddo kordhinta iyo imtixaankeedoo dhan xal maxaa u aragtaan idinkoo farsamo iyo siyaasadba ka eegaya wallaahi xalku wuxuu noqon karaa in dee horta xaqaa'iqa loo soo dego oo aan laga fikirin maxaa xisbi hebel u dana ee looga dhaqaaqa maxaa qaranka u dana qaranka waxaa u dana inay doorasho waqtigeeda ku dhacdo xagga sharci dejinta iyadana waxaa laga maarmaana in sharciyadeennu ay cad yihiin oo diftaaxa marka dhawaajiyay halka la leeyahay commissionkaa goynaya oo dheedka sheegaya taasi waa open ended in la yidhaahdo maalin heblaayo sanadka maalinta intaa bisha intaa saacadda intaasay dhacaysaa doorashadu way noqota xanka haddii dhici weydo for example kuwan golayaasha maalintaa waxa ka bilaabma golayaashu waa in la kala dira ay tahay oo sharciga lagu daro laftirkeeda si aanay u noqonba waa imika waxa yani dhaqan laga dhigtay haddii doorashada waqtigeeda ku dhici weydo inuu extensionku yahay automatic marka waxba ma dhacayaan dalka leeyahay waxba dhacayaan dee waa automatic boo iska sii fadhiya ama madaxweyne ha noqdo ama baarlamaan ha noqdo ama deegaan ha noqdo haddii doorasho dhici weydo kii joogay baa iska sii joogaya la leeyahay waxaana ahayd marka waqtigii la doortay uu dhammaado inuu si toos oo lubiya awoodihii oo dhan
inay suuq galaan baan qabaan oo sharciga lagu daro oo sharciga kaleerna uu yidhaahdo qofka termkiisa hadduu dhammaysto waqtigu ka dhammaaday ma aha xildhibaan marka waxa shuruucda hala hagaajiyo shuruucdan inay ahaadaan shuruuc dhammaystiran oo aan fake ani ku jirin grey areas ama meelo u furaya inay maaragtay iska sii socon karaan waa xal muhiim wey mid kalena mushkilad bay nagu tahay oo runtii aan rabay inaan ka dhawaajiyo kharashka doorashooyinka maaha un kuwa commissionka ku baxa mushkiladaheenay ka mid tahay dadka musharaxiinta ama madaxweynaha noqoto ama musharax deegaan ha noqoto ama mid golaha noqoto wakiil ha noqoto qaabka ay u dejisan yihiin doorashooyinkeena iyo ololayaasha waa very expensive waa dhiigbax ayay ku tahay qofka waxa weeyaan marka in iyada laftirkeeda la rifayis gareeyo oo dib loo eego oo qaabka ugu fudud qofku siduu rabo ula soo xidhiidho dadka laakiin ololayaashan la leeyahay maalin hiblaayo saas alatee koska badani ku baxayo inaynu uga guurno telefishanada iyo social media iyo in dadka laga wacyigeliyo lagala hadlo deetna xataa dhibaato amni baa sometimes mararka badan timaada waxay yimaadaa shilal badan baa ka dhaca ololayaasha marka waxaas oo dhami waxay inagu yihiin kos dheeraada taana waxaan leeyahay iyadana in laga gudbo ron waxay isku soo ururaysaa dib u dhaca maxaa lagaga hortagayaa dib u dhaca waxaa lagaga hortagayaa in qarannimo loo fikiro oo xisbiyadu ay ka tagaan maxaa xisbiga wadane maxaa qaranka wadana doorasho waqtigeeda dhacda wadana talada dalka maanta cidda haysana iyada mas-uuliyadda koowaad leh iyadna inay ka badheedhaan wax kastoo suurtagelin kara inay waqtigeeda ku dhacdo inay ku dadaalaan commissionkuna walaaca iska daayo oo cabdifataax baa inoo soo gabagabayn doona taladiisa iyo wuxuu xalka u arko isagoo ku saraynaya khibraddiisa waay bismi illahi raxmaan raxiim waxaa filaya cabdirashiid baa qodobka koowaad sheega waxa weeyaan dee arrimahan aan ka hadlayno waa arrimo waa national issue waa arrin qaran marka dee muraayadaha aynu ku eegayna ama bikaacooyinka aynu ku eegaynaa horta waa inay noqotaa qadiyad ku saabeysan maxaa dalka wadana wixii umusha wadana baa ilmaha wadana wixii qaranka wadana baa ayaa xisbiyadana wadana marka national issue inaynu arrinka u eegno qodobka labaadna waxaan leeyahay waa niyo xisbiyadu laba dhibaato haysto mararka qaarkood go-aanada waxay u qaataan arrimo dhexdooda inay ku xalliyaan xataa iyagoon jeclayn markaa doodaha xisbiga dhexdeedu inay marka hore dhexdoodana xoojiyaan go-aankoodana ay qaataan isku huursanaanta ha iska daayaan mararka qaarkood doodan iyo waxaan soo baxaya xisbiyada dhexdooda laftigooda ayaa arrimaha qaarkood tahay qodobka labaadna waa xisbiyada kala duwan dhexdooda oo markay qadiyad ka doodayaan bal fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun war qadiyadda ay ka hadlayaan hadday mid sharci tahay hadday mid dhaqaale tahay mid amni tahay mid farsamo tahay ciddii aqoonta u lahayd inay weydiiyaan qadiyadda kale waxa weeye qadiyadda inay contextualize gareeyaan inay dalka ku xidhaan xaaladda markaa taagan iyo waxa ay ka hadlayaan sidee bay isu leeyihin ama doorasho ha noqoto ama diiwaangelin ha noqoto iyadoo dhaqankeenna iyo diinteenna iyo fikirkeenna iyo habdhaqankeenna intaba iyagoo eegaya in iyaga laftigoodana ay ku sameeyaan qadiyadda kale waxa weeyaan iyo dooda had iyo jeer yaan la sugin last minute-ka had iyo jeer markay bahasho afka soo saartaa doodeedana la bilaaba qofku waxa fiican iyadoon muranku inaanu iman marka wixii la gelayo laakiin muddo ka hor in arrinka lasii rogrogo iyadoon caadifadii iyo xasaasiyaddii aanay jirin go-aanada caynkaasee la qaataana had iyo jeer qofka way ka saaraan qodob kale waxa weeyaan dee axsaabta qaranku iyagaa siyaasadda dalka u igman marka la doortay kadib markaa go-aamadii gaadhaya gololka fuulnimo yaanay noqonin daraasad iyo aqoon ha ku saleeya daraasad iyo aqoon ha ku saleeya yaan gololka fuul noqonin hebelo hebel ka hortag la soo muran soo diid yaanay qadiyadaasi aanay noqonin ereyga isu tanaasulkuna wax ceeboo ku jira ma jiro laakiin waa inuu sabab cadna uu leeyahy wax uu xaqiijinayana uu leeyahy midna waxa weeyaan waa waxaan dib u dhaca la yidhaahdo aynu fool xumaysano inay wax fool xun tahay aynu samayno laakiin wixii sababayoo dhanna iyada laftigeedana aynu daraasad gelino dooda iska weydiino maxaa sababa faktarro badan baa ayaa sababay tiimanka haddii sheegaya xildhibaanada iyo kharashkoodu inuu qofku sii joogo awooddii xisbiga oo imanka aada muddo inay gacantooda kasii baxayso waa qayb ka mid a maanta markaadani cabdirashiido imanka murashaxa ma maqashaan murashaxuna qofku marxaladdu ku noqda waa marxalad aada u dambaysa
waa qadiyad weyn kharashkan ku baxaya qofka murashaxa ah ama raba inuu murashaxa noqdo doodeeda waqtigan ka gelaynaa waa in laga yareeya waa in qofka si kale lagu maaragtay lagu doorta waxaan aan ku soo gabagabeynayaa oo keliya uu waxa weeyaan inaguna inaan dhegaystayaal ka noqonine inaga laftigeenu intii aqoon-yahan iyo dhegaystayaal ka noqonine wixii fikir meel aynu ku ururino aynu yeelano doodaheennana aynu xoojino iyadoona xasaasiyad iyo kala riixasho lahayn ha noqoto doorashada iyo dhaqaalaha doorashada iyo amniga doorashada iyo arrimaha bulshada doorashada iyo farsamada doorashada iyo sharciga in wax kasta aynu isweydiino ayaa iyada laftigeedu fiican qadiyada ugu dambeysana waxaan u waafaqsanahay cabdirashiid komishanka doorkiisana ha la xoojiyo awooddiisana faraha looga qaado isaguna go-aanadiisa ha qaato aad iyo aad buu intuu mahadsan yahay cabdifataax ibraahim sheekh sidoo kale waxaan u mahad celinayaa cabdirashiid xasan mataan laba khabiir oo dhanka siyaasadda ah iyo arrimaha doorashooyinka khibrad badan u leh ka jawaaba su-aalo badan oo aad ka weydiiseen marxaladaha waddanku hadda uu maraya arrimaha doorashooyinka inooga warramay wax badan oo ku saabsan arrimaha sharciga siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka iyo khibradooda gaarka intaba waxaa kaloo aan si gaara ugu mahad celinaynaa hargeysa debates oo ah madal runtii soo qaban qaabiso doodo macquul ah oo bulshada dhexdeedana macno u sameynaya oo tan caawa ay ka mid tahay dadaalka ay geliyeen iyo xaruntan ay sameeyeen ee caawa aynu ku lafagurnay arrimaha doorashooyinka awoodda dawliga ah kalsoonida ummadda ay ku qabto arrimahaas khubradana runtii inoo soo diyaarisay barnaamijkeena caawa ku saabsanaa doorashooyinka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay dib u dhiga doorashooyinku intaas ayaa ku dhan yahay aad baan idinku mahad celinaya qaybtaa ka qaadateen kasoo qaybgal ahaan khubraduna way mahadsan yihiin salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan